بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم لمانتين بشمي واللحية طبعا waxaan joognaa magaalada Hargeysa waxaan jeclahay inaan ereyo kooban ka yiraahdo mujaahid xalay ku dhintay Hargeysa oo aanu in badan ku soo wada jirnay halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran ee SNM horseed ka ahayd ilaa maalintii dalka soo galay ee la xoreeyay 1991 ilaa maantana u taagnaa dib u dhiska dimuqraadiyadda nabadda xorriyatul qowlka iyo horumarka Soomaaliland xalay saqdii dhexe waxa ku geeriyooday magaalada Hargeysa Xasan Guure Jaamac naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo eheladiisii qaraabadii qoyskiisii inantiisii iyo dhammaan eheladiisii oo dhan samiriye iimaan Ilaahay ka siiyo mujaahidiintii ay soo wada halgameen Ilaahay samiriye iimaan ka siiyo intii ay saaxiibada ahaayeen iyo intii ay qaybaha kala duwan ee nolosha wadaagayeenba Ilaahay samiriye iimaan ka siiyo isagana naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo Xasan Guure Jaamac waxaan bartay 1986 duruufo adag oo halgameed ayaan isku baranay magaalada Addis Ababa ayaan dabayaaqadii 86 annagoo wafdi ahayn ka soo noqday aagii koonfureed ee Baarey ee saldhigyadii Gambadh iyo Garbaguraajo iyo Bangool iyo ay ka tirsanaayeen Ibrahim Megaag iyo laba quwadle iyo Cabdilxakiim Qaadisimuun iyo aanu soconay isagoo Nairobi ka yimid baan Addis Ababa kula kulmay barashadeedii ugu horeysay Xasan Guure Jaamac taasay ahayd macnaheedu ma aha oo dib baan u sii baranayaa noloshiisii inuu Xasan Guure Jaamac halkaa ka soo biiray halganka 86 waxay markii uu sida tooska ah xarumihii uu dagaalkii hubaysnaa ka socday uu u yimid Addis Ababa kuma raagin markiiba uu ka yimid oo farmihii dagaalka ayuu soo aaday laakiin Xasan wuxuu ahaa naxariistii janno Ilaahay ka waraabiye dadkii halganka ka bilaabay dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada Hargeysa oo la sheegay inuu dawladda hoose ka shaqeyn jiray unugyadii qarsoonaa ee magacyada halgameed ee qarsoodiga lahaa unugyadii kala gedisnaa xaafadaha kala duwan iyo degmooyin kala duwan ee magaalada Hargeysa ka howlgali jiray taana waxaan ku sii ogaanayaa shirweynihii shanaad ee SNM oo 28 February ilaa 10 March 78 ka socday magaalada Harar shirweynahaas oo muran ka dhashay ergooyinkii ka qayb gali lahaa oo dhowr xubnood oo hormuud u ahaa xarakada SNM ay ka baxeen oo ay 2-3 maalmood ka maqnaayeen dabadeedna dib ugu soo noqdeen qodobadii muran ka dhashay waxa ka mid ahaa Xasan Guure Jaamac iyo Cabdi Cali Mahdi iyo oo ay ku doodayeen hogaamiyayaashaasi inay yihiin kuwii ay dagaal galiyeen ee dagaalka gudaha iyo unugyada gudaha waday sidaa daraadna ay xaq u yeeshaan inay ergooyin ka noqdaan shirweynaha shanaad ee SNM sidii ay kaga noqdeen Xasan Guure Jaamac tan iyo maalintaas ilaa intii ay SNM jirtay golaha dhexe ayuu ka tirsanaa guddida joogtada ayuu ka tirsanaa xilal fulineedna waa ka soo qabtay SNM bishii February 1988 waxa loo magacaabay xogayaha waaxda abaabulka muddo yar kadib ayuu haddana noqday xogayaha waaxda warfaafinta intii kale wuxuu ku jiray guddida joogtada ee ururka SNM iyo golaha dhexe ee SNM saasaanu ku soo galay wadanka intii dalka lagu jiray ee cigaal madaxweynaha mar buu noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xilalka kale ee halbowlaha ee uu qabtay waxa ka mid ahaa inuu hogaamiyey oo uu noqday gudoomiyaha jimciyadda Sooyaal ee mujaahidiinta Xasan Guure Jaamac intii dalka lagu jiray ee dib u xoreyntii kadib wuxuu ahaa shamacyadii bidhaamayay ee u qaylinayay xorriyatul qowlka
ee u qaylinayay cadaaladda iyo sinaanta ee u qaylinayay dimuqraadiyadda ee u qaylinayay nabadda iyo wadajirka iyo midnimada shacbiga somalilan dadkii dhufaysada ugu horreeya kaga jiray difaaca qarannimada nin sugaameed buu ahaa xasan halgan wadaag oo keliya maan ahayn sugaantaanu wadaagnay xasan toosinta iyo tilmaam bixintaanu wadaagnay xasan habre wadaag baanu ahayn naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo ilaahay ha ka abaalmariyo wixii uu dalkan iyo dadkanba u soo qabtay innagana dhammaanteen samir iyo iimaan haynaga siiyo sidaasuu xasan nolosha halgameed ee hodanka ah ee khatarta badnayd ee aan ahayn inuu ka soo bilaabay halgankiisa faromihii jiidaha hore laakiin tii uu halkan dalka gudihiisa unugyadii qarsoonaa ee habeenii iyo maalin isaga dab qaadayey dadka iyo degmooyinkii xaafadaha ku xidhnaa goobihii ay ciidamada dib u xoreynta qaran ee SNM ay ku sugnaayeen sidaasaynu xasan ku sagootaynaa naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo xilna sidaasuu inagu fuulayaa wixii uu carruur ka tegey oo inana iyo xaaskiisii wixii inagala gudboonaadaa inaynu inaguna mujaahidka xilkaa ka qaadno oo aynu sidaa isku ogaano asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu